waxaan fadhiyey meel aan dadba laga helin oo cidla ah. Waxaan arkay mas weyn oo hortayda taagan. Walaal channelka subscribe saar gambaleelkana u furo si aad u heshid qisaska cajiibka halkan aan soo gudbino. Haddana waxaan baranaynaa qisada nin uu mas hujuumay isagoo tukanaya. Waxaa la sheegay in nin ka mid ah dadkii wanaagsanaa uu yiri, waxaan rabay inaan qaato fasax anigoo ku raaxaysanaya hawada dabiiciga ah oo aan ku fakaro Ilaahay abuuristiisa Azza wa Jalla iyo siduu u abuuray samada iyo ardada. Anigoo fadhiya beerta dhexdeeda waxa igu galay waqtigii salaada. Waxaan joogay meel dadka ka fog waxayna ahayd meel caada ahaan aan dadka laga helin. Waxaan hamiyey inaan salaad tukado waana weysaystay. Kadibna waxaan bilowday salaadayda. Xilli aan salaadayda ku jiray, waxaan si kadis ah u arkay mas weyn oo taagan hortayda. Aad ayaan u argagaxay markii koowaad, laakiin ma aanan jarin salaadayda. Waxaan ku fakaray inuu Ilaahay subxaanahu wa tacaala iga ilaalinayo uuna iiga filan yahay khatartan. Haddii aan dhintana geeridu waa xaq, waxaana dhintay anoo u sujuudsan Ilaahay Azza wa Jalla. Sidaas ayaa caqligayga ku soo dhacday waanan sameeyey. Walaal waxaan kaa codsanayaa inaadan subscribe hilmaamin. Haddii aad saartana Allah kaa farxiyo. Salaadayda ayaan dhamaystay maskuna iima soo dhawaan marna. Subxaanallah, hortayda ayuu maray sidii inuusan i arkayn. Halkaas ayay ku dhamaatay qisadii ninkan. Laakiin su'aasha taagan waxay tahay, haddii aad joogi lahayd ninkan booskiisa maxaad samayn lahayd? Ma bannaan tahay salaada in la jaro xaaladan oo kale? Salaada in laga baxo adigoo xaaladan ku jira waxa ku jira tafsiil. Haddii uu nafsadiisa u boqo salaada wuu ka baxaya. Dhibna ma lahan si uu uga takhaluso khatartan. Sida qof raba inuu dilo ama mas raba inuu cuno. Daawada muuqaalka like saar waxay naga caawinaysaa inuu meel fog gaaro. Siina share garay oo khayrka faafi.